kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media. Wararkan maanta idinkugu hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona duqeymo lagu beegsaday Daesh oo ka dhacay bari iyo wararkii ugu dambeeyay. Dowladda Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay hanjabaadii Cali Dheere. Diyaarad Ruushka laga leeyahay oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay xalay duqeymo la beegsatay kooxda Daesh ee ku sugan gobolka bari ee maamulka Puntland, halkaasi oo ay fariisimooyin waaweyn ay ku leedahay Daeshiyiinta Soomaaliya. Duqeyntan ayaa si gaar ah uga dhacday buraha Cilmiskaad oo ka tirsan degmada Isku Shuban ee gobolka bari, sida ay inoo sheegeen ilo dadka deegaanka ah. Wararka ayaa intaasi kusii daraya in duqeyntani ay socotay ilaa saaka waa berigii. Waxaa jira khasaare xoogan oo ka soo gaaray xubnaha kooxda Daesh. Ugu yaraan 3 horjoogo oo ka tirsan Daesh ayaa lagu dilay. Wararka ayaa sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Puntland oo diiday in la shaaciyo magacyadooda. Xaaladda ayaa weli kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa dhulka buraleyda ah ee gobolka bari ee Puntland. Wararkan ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay ee kooxda dhaqdhaqaaqa culus ka waday halkaasi oo marar badani kula dagaalantay ciidanka Puntland. Dhanka kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Mareykanka kuna aadan duqeyntaasi xalay ilaa saaka lagu garaacay qaybo ka mid ah gobolka bari. Ma ahan markii ugu horeysay oo duqeymo ka dhan ah dagaalyahanada Daesh ay ka dhacaan deegaanadaas, iyadoo oo sanadihii ugu dambeeyay ay buraleyda gobolka Isku Shuban iyo Galgala ay ka dhaceen weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhan ah Daesh. Si kastaba, Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda howlgallo culus oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab iyo Daesh, kaasi oo iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka. Haatana wasiirka ayaa si weyn uga hor yimid hanjabaadyo uu Cali Dheere u diray ganacsatada Soomaaliyeed, wuxuuna tilmaamay inuu yahay nin iska hadlayo. Jibriil Cabdirashiid ayaa shaaca ka qaaday in Cali Dheere aan waxba laga weydiinin ilaalinta hantida ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Waxaa kale uu intaasi kusii daray in cidda laga ilaalinayo hantida shacabka ay tahay kooxda Al-Shabaab oo uu ku eedeeyay inay baad ka qaado ganacsatada iyo shacabka. Ninka Cali Dheere la yiraahdo ee ku hadla afka khawaarijta waxaanu u sheegaynaa inaan waxba laga weydiinin ilaalinta hantida ummadda Soomaaliyeed oo cidda laga ilaalinayo ay tahay isaga oo ah khawaarij Al-Shabaab, ayuu yiri wasiirka ganacsiga Soomaaliya. waa sida uu hadalkiisa u dhigay. Sidoo kale wuxuu bogaadin u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqan geliyay amarka ka soo baxay dowladda ee ku aadanaa in aysan la macaamilin Al-Shabaab ayna iska diidaan fariimaha uga imaanaya dhanka kooxdaasi. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya ay sii wadayso dadaalkeeda isla markaana ay ka go'an tahay in la curyaamiyo Al-Shabaab. Hadalkan ayaa daba socda muuqaal uu dhowaan iska soo duubay Cali Dheere oo si adag uga hadlay dagaalka dhaqaale oo ay kala kulmeen dowladda federaalka, isaga oo dhanka kale bogaadiyay in shirkadaha waaweyn uga digaan inay bixiyaan xogta dadka ay hantida u hayaan. Si kastaba, Al-Shabaab ayaa muuqatay in looga adkaaday dhanka military iyo dhaqaale maadaama dhulal badani laga qabsaday, sidoo kalena laga xayiray akoonno ay lacago ugu jireen. Haatana diyaarad Ruushka laga leeyahay oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Diyaarad helicopter ah oo Ruushka uu leeyahay ayaa lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidaasi sheegtay safaaradda Ruushka ee Djibouti, sidoo kalena qaabilsan Soomaaliya. Wararka ayaa dhacay 23 Janaayo sida ay sheegtay safaaradda, balse waxaa shaaca laga qaaday kaliya Axaddii shalay ahayd. Diyaaradan ayaa waxaa leh shirkadda UTA ee Ruushka, waxayna ka qayb qaadanaysay howlgallada bini'aadanimo ee qaramada midoobay ka wada Soomaaliya, sida ay sheegtay safaaradda. Diyaarad helicopter ah oo laga leeyahay Ruushka ee ka qayb qaadanaysay taageeridda gaadiidka cirka ee howlgallada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu duqeeyay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa waxaa soo gaaray burbur aan badnayn ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda. Ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay shilkani. Duuliyaasha Ruushka waxay si caadi ah u sii wateen shaqadoodii ayay tiri safaaradda. Safaaradda ayaa intaasi ku dartay in kooxda Al-Shabaab ay ka dambeysay weerarka, isla markaana iminka uu socdo baaritaan
baaritaano ku aadan dhacdadani. Kooxda Al-Shabaab ayaa weli wax war ah kasoo saarin weerarkani. Ma jirto dhacdo ama war la og yahay oo ka dhacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho 23 Janaayo, inkastoo suurtagal tahay in dowladda federaalka ay qarisay. Si kastaba, waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro hoobiye ah oo 24 Janaayo ee Al-Shabaab ku qaaday xaafado ku dhow madaxtooyada qaranka. Sidoo kale 22 Janaayo oo ah maalin ka hor maalintii ay safaaradda sheegtay in Al-Shabaab ay weerar ku qaaday xarunta gobolka Banaadir.